khatar oo ah haddaan dadkii lacagtan ka soo qaadeen garanayo lacagtii aan u celin karo maanta waan u celin lahaa dadkaasi ma shardi sidaasay markii hore kula soo galeen mise ogid miyaa rasuulka ilaahay inuu ku miithaaliyey qof sadaqada la noqda sadaqa u baxsaday ama hadiyad u baxsaday qofka dib oo la laabta inuu la mid yahay ay matagay oo matagiisi dib u cunayo u leefaya dadka waa niyeysteen sadaqada idin salaamaya walaalaha Soomaalida meel ka soo joogtaan si walba aad noo dhageysanaysaan ama aad noo daawanaysaan haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad daawanayso channelkan walaal waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto like tana noo saarto videogan waxaan ka rabaa ugu yaraan 5,000 oo like qof walba Soomaali oo daawado waxaan ka codsanayaa inuu like saaro runtii haddii aad caafimaad qabto ilaahay waxaan kaaga baryayaa caafimaadkaada inuu ku kordhiyo haddaad xanuunsan tahay ilaahay waxaan jalla cala wax ka baryayaa inuu xanuunka kaa dulqaado haddii murugo iyo wax ay ku haystaan ilaahay waxaan kaaga baryayaa in murugadaas uu kaa dulqaado intaas waa sunno mu'akida oo naga dhaxayso ka sokow caaway toobiga aan ka hadli rabno waa barnaamij danqashadiisa leh ama sensitive ama topic very hot horta social media waa lagu wada jiraa markaad wax duubaysid oo aad ilaahay kuma darnaadee bulsho wax la wadaagaysid waa inaad ka fikirto waxa aad duubaysid inay yihiin wax long term wax 100 sano hadda kadib ah video ku jiray inuu yahay oo dadku ay ku daawan karaan waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka xalay soo cusboonaaday dagaalka u dhaxeeyo Farxiyo Kabayare iyo Sheekh Badbaado meeshuu ka bilowday iyo aasaaskiisa iyo waxa qarsoon iyo xaaladda sida ay tahay markaad rabto wax inaad ka hadashid ama arrin analyze garaysid waxa looga hadlaa looma dhexaadiyo ama macnaha labadooda hadday isdagaalaan waad u jeedid qof inuu 100% qaldan yahay dhexdhexaad kama noqon kartid waa xaqiiqda waa laba qof u jeedaa qofka inuu qaldan yahay kana uu saxan yahay waa inaad kan qaldan runta u sheegtid haddaad tiraahdid waa dhexdhexaadinaya ilaahay kuma darnaadee labadooda macnaha waa kana waa ka xishoonaya kana waa xishoonaya waa qalad qofka qaldan waa qaldan taallaa marka videogii waan daawaday oo Sheekh Badbaado erlaasiyo uu ka hadlay runtii waan idin wadaagayaa erayada ay ka xanaaqday Farxiyo Kabayare intaan marka erayadaas u guda galin ayaan rabaa inaan comment bixiyo Farxiyo Kabayare waa gabar fanaan Soomaaliyeed fanaan aan ixtiraamno ilaahay kuma darnaadee fanka ku jirta waa bulsho walbana waa inay dadka suugaanta hay ixtiraamaan waa ixtiraamayna Farxiyo Kabayare waligay kama hor baan waa ixtiraamayna labadii maalmood ugu dambeeyay waxaa jiray inay daba socotay gabar Soomaaliyeed oo 2020ka social media timid kana hadashay baahidii markaasi gabadhaasi ay qabtay xaqiiq jirtayna ahayd gabadhaas baahi way jirtay baahidana idii ilaahay kuma darnaa qofka maalin ugu baahda maalin waa dharagsan yahay baahida kulama dhalano maalin ma baahnaanis gabadhaas waxaa dhacday dhibaato inay la soo wajahday social media timid kadib dadka walaalaheeda ee Soomaaliyeed ay u gurmadeen gurmadkii ay isku daaweysay wixii kale oo harayna ilaahay kuma darnaaday ayada maalgashi waxa ku sameysay kulli waxay ahayd wax ilaahay jalla wa ala uga soo qaaday dadka walaalaheeda ee Soomaaliyeed marka Farxiyo Kabayare waxay timid social media si public ah ay waxay u tiri gabadhaas dabaysatay waxay tiri dadkii waxay sadaqaysteen oo dhan xageen geynaya sadaqada waxaad adiga sadaqaysatid hebel baan wax u qabtay dadka waxa la yiri maaragtay nahyiga badan ee dhahay hebel baan wax taray hebel baan sameeyay waa dadka ugu xun oo ilaahay jalla wa ala uu san caafin waa labada qof la sheegay aqra inaan la caafin qofka mana sheegashada badan ana sameeyay waxaana u sameeyay maxaad sameyn kartaa bini aadan baa tahay bini aadanka waa fuqara waa marka waxa wax laga xishooda ah in ilaahay kuma darnaaday qof aad caawisay tad social media timaadid aad tiraahday aniga caawi ana u soo aribiyay xogaa meeshaas waxaad ka dareemaysaa inay jirto aniga hadda kuma fogaanayo oo aad ma karbaashay laakiin xaqiiqda meeshaas waxa kaaga cadaanaysa inay jirto aqoon yari ama cilmi yari marka
arrintaasi ka hadashay sheekh badbaadana wuu ka hadlay oo wuxuu u sheegay weliba waxay aad u daba kacday aayadaha qur-aanka iyo xadiis bay daba ordaysaa bay tiri laakiin annaga waxaan isku daynaa inaan si fiican u dhigno yacni waxaa la rabay inay tiraahdo gabadhan waxay isticmaashay aayado qur-aan iyo xadiis si dadka ay ku dhacdo hadday dhihi lahayd haddii kaloo ay dhihi lahayd annaga gabadhan waxaan ka rabnay waana qalad ayaga ay sameeyeen ayaga laftirkooda farxiyo kaba yar ay ugu weyntahay qaladkay sameeyeen ay ahayd sababtoo ah markaad qofka caawinaysid dadka aad adiga u dhexgelaysid waa in dadka aad tusto evidence you have to show them evidence you have to show the receipt that was given to the girl by the doctors or by the hospital markii receiptkaas marka dadka inay ku qancisaan laga rabay marka farxiyo kaba yare waxaa laga rabay 2020 markii barnaamijka ku guda jirtay inay dadka ay lacagta hantida ka soo qaado ay ku qanciso ay tiraahdo gabadhii isbitaalkaas ay tagtay halkaas ay tagtay camera nagala soo qaaday qaab noocaas inay yani follow up ku sameeyso follow up kuma aysan sameynin she just left it as it was marka after hal sano kadib maxaa keenay in farxiyo kaba yare ay soo laabato وهذا أنا قبل خبصته شيخ بدبادو وحكى هذا وحوي قبل عن علوم ذي محل يجري الدين الإسلام كا بيت بقش قال إيه قال رسول الله قال قف مسلم كأي إنه إلهكم مدر هذا مركو هذا يو والنبي قحصه إن إلهكم مدر هذا القرآن وسوقاته وواحد وقرحان واحد قبلنا أنا وحوم سمين مركا واحد لقوها يستوحيتها هي فرحية كبير أنو شيء جا فيديو يدي أي صوص ما يصير ويوجه اللي يصير برنامج كاس حقيقة هذه اللي قال الله كنت في عن أنا قبل جيران أركي فرحية كويرة بقول كيف بقول ويقلدن تاعي 100% ويسمى يسي وأخر سنة هاي إني بحري وأيدتك الصومالي ده أوكا شيء قبل الصومالي يتوقف وناكسن ومرر بدتك حالة دور أدك هاي أي يعني أول ليسو لكن وحاسو وحا بابينا مركز شيء قلت مركز ترى هيل بان أنا قلت لها هيل أنا أسميه مركز من الشيء قشات كنتي عمل كادي ونني وحي صدقة اللي قاسينا يودن مش أصنالي فايدة نقولنسا marka qofku ma fiicno inuu sheegashada maartay mana sheegashada hebel aan wax qabtay kana wax siiyo waa kii kala wad marka anyway marba video inuu daba dheeraado wararkan isdabahayo la leeyahay sheekh badbaado ba kii kala iyo farxiyo kaba yar waxaan dhageystay video ay soo duubtay oo ay ku aflagadeynayso sheekh badbaado oo laga wanaagsanaa laga ilaakum daraa fiicnaa inay aflagadeyso culimada Soomaaliya anaga Soomaaliya hadana culimada way ugu weyn tahay in culumada aflagaadeyana wax aan qaadanayno ilaakum daraadeen jirto haddii xataa adiga igu taageersaneen aniga fikirkeyga waa mid inna fikirkeyga xor maxaa la jiray martii ogamihi culumo qofkii qabsado oo ku dhago anaga waa ku dhageynaa sababtoo culumada waa dhaxalkii waa dadka diinta ilaakum daraadeen xayawaan diinta markuu nabi maxamed alayhi salaam asxaabadii waxa ka soo qaaday taabiciintii waxa ka soo xambaaray culimada marka waxa la jiray waa asset ka kaliya oo aysan anyway hadii ay tahay markii kugu horeysay oo aad daawanayso channelkan walaal macaan waxa ka codsanaya inaad subscribe tiraahdo share garayso commentiga fikirkaada aad nala wadaagto like tana waan ka codsanaya Soomaaliya videoga waxaan rabaa almost 5,000 like inuu gaaro aad baan idin salaamaya I love you guys one Somali one love thank you very much